qisada ugu dambaysa ee nabiga deeqsinimadiisa sallallahu alayhi wasallam aan ku tilmaamayno waa qisa cajab badan oo qisadan yani markaan akhriyaba anoo keligay aan qoslaa waa qiso la yaab leh sahih muslim bay ku taala qisadu miqdaad ibn aswad baa yaa warinaya wuxuu leeyahay miqdaad aniga iyo laba saxaabi aniga laba saaxiib oo leenahay ayaa soo qaabilnay buuri marka waa rafaadnay gaajaan hayso waa rafaadsannahay maqalkanagi iyo aragganagi baa tagay waa daciifay waxba quman ma aragno maqalkanagu indha dhagahana wax quman ma maqlaan gaajada iyo rafaadkii dhibkana haysta dartii nabigaan u nimid sallam markaanu meeshii aan nimid saxaabadii u nimid fajacalna nacridu anfusana ala asxaabi rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam waxaan bilownay inaan dadka u bandhigno yani isu bandhigno oo baahidanadii rafaadkana haystay wixii iyo yani wax weeye falaysa axadu minna yaqbaluna cidna qaabishaba weynay ila saxaabadu iyaga laftooda nin wax haystaba ku yariyay cidna soo dhaweyso oo naqaado waxna siiso oo waan weynay buuri markaasaa nabiga u nimid buuri sallallahu alayhi wasallam nabigu waa nakaxeeyey saddexdanadii waa nakaxeeyey guryihiisuu nageeyey gurigii haddaan tagnay saddex neef oo adhiga ku xidhan saddexdii neef adhiga ahaa ayaa nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam ihtalibuu hada labana baynana yani saddexda neef adhiga caana inooga soo lisa kuwa baynu wadaagaynaa fakunna nahtalibu fayashrabu kullu insani minna nasiibahu waan soo maalnaa waan soo lisnaa kadibna nin walba qaybtiisu cabaa nabigu marbuu maqan yahay markaan soo lisno qaybtanada cabno qaybtii nabiga aan ugu talagalay waa u dhigi jirnay markaasuu xilli dambe habeenkii imaanayaa asaga oo socda dadkiina seexdeen fayaji'u min al-layl habeennimadii wuu imaanayaa fayusallimu tasliiman laa yuuqidu naa'iman wa yusmicu al-yaqdaan markuu guri la hurdo soo galo waa salaami jiray salaan cidda soo jeedana ay maqlayso ruux hurdana aan kicinayno hurdada ka kicinaynin buu ku salaamayaa assalaamu calaykum hadal yaraha yani dhexdhexaadaho muxuu ahay kan soo jeedana uu maqlayo ka hurdana aan kicinayn kadibna nabigu sallallahu alayhi wasallam masaajidku imaan jiray waa tukan jiray markuu salaad soo tukada kadib ayuu imaan jiray markaasuu guriga markaasuu caanihii aan u dhignay cabi jiray sharaabkii cuntay caabihii buu cabi jiray habeenada ka mid ah buu miqdaad marka caanihii oo yaala intii nabiga aan u reebnay oo u dhignay oo yaala ayaa shaytaan ii yimid buu habeen طبعا يعني wax uu sheekay qalbigiisu u sheekay aniguna intaydii waan cabay buu markaasuu shaytaankii wuxuu igu yidhi buu war Muhammad ansaar waa reer Madiina ayuu guryahooda aadaya markaasay soo dhaweynayaan oo deeq siinayaan xaajadiisii iyo dantiisana halkaas uu ka helayaa muxuu ka badan uga baahan yahay bimaana wax weey guryaha kale ansaareed iyo saxaabadiisu ka soo dhargaya wax ka helayaa intan yarta ee caanahe ka badeed u reebteen muxuu uga baahan yahay muxuu nabigu ku falayaa sallallahu alayhi wasallam shaydaan baa iigu sheekay buu sidaas warkii shaydaanku ii sheegay baan qaatay buu yiri fa ataytuha fa sharibtuha intii yareed nabiga aan u dhignay ayaan cabay buu waa ka fuuqsaday waa ka saaray falamma an waghalat fi batni intii yareed markay calooshaydi gashay buu oo ay calooshii aan ku hubsaday oo aan ogaaday buu yiri annahu laysa ilayha sabiil ana calool galay lagama soo saari kare inay tageen oo saa ku tageen markaan ogaaday ayuu shaydaankii qoomamay walbahaar hadana ugu tuuray buu nadamani shaytaan walbahaar iyo walwal iyo murug baan la joogay wuxuu igu yiri buu hadana shaydaankii cabsiyay wayxaka ma sanacta asharibta sharaba Muhammad war habaar qabe war maxaad samaysay ma waxogaagii nabigu uu lahaa bad cabti fayaji'u fala yajiduhu fayad'u alayka fatahlik uu iman waxogaagii markuu waayana uu ku habaari wad halaagsami way ku dhamaan nafta isugu kaytimid buu waxogaagii caanihi cabay calooshii kama soo celin karo shaydaan baa walbahaari galiyay asagii cabsiyay ee waswaasiyay hadana wuxuu ileeyahay nabigii baa imaano waxogaagii markuu waayana uu ku habaari doona maanta halaaga waa ku dhamaatay yaa adduunyadii baa igu xidhiintay rafaaday fadahaba adduunyaaka wa adduunkaagii aakhirada maanta ay u dhamaatay adduuniya aakhira maanta ay ku dhamaatay xageed geli doonta wa alayya shamlatun mara yaro gaaban baan qabaa buu marka
markaan yani lugaha saaro oon qaar dambaha saaro madaxaygaa soo baxaya buuri qaar hore haddaan saarana lugahaygaa bannaana mara yaroo aan jidhkayga ku wada fillayn ayaan qabaa buuri habeenkii oo dhan galgalo hurdo isga tagtay seexan waayey murug walbahaar waan gubtay labadaydii kale saaxiib iyagu waa iska seexdeen ileen iyagu dakana ma qabaano cidna wax kama ina cabine yani hurdadooday dheeraysteen anigi wuxuu seexan waay oo rafaad mar dambe ayaa nebiga sallallahu alayhi wasallam anoo soo jeedo galgalanayo hurdo waayey oo ilaa buura caawan baa lagu habaari doonaa nebigu waa salaamo yiri kama kaana yusalli markuu soo galay assalaamu calaykum sidii caadiga u salaami jiray kadibna masaajidku galay uu soo tukaday waa yimid fa ataa sharaabahu wuxuu isiri meeshii uu caanuhu u yaaleen ayuu tagay oo cabbu isiri fakashafa canhu markaasuu weelkii dabool ka qaaday falam yajid fiihi shay waxba kuma jiraanba waa la cabay ilaa ninkii baa ka fuuqsaday miqdaad hay farafaca ra'sahu ila asamaa markaasuu nebigu sal alla alay wasalam ayuu kor fiiriyey cirkuu fiiriyey madaxuu kor u qaaday cirkuu fiiriyey markaasaa waxaa idhi nebiga oo kor fiirinaya markaan arkay waxaan idhi al'aana yadcuu calayka fadalik walle hadda unbuu ku habaari doonaa way kuu dhammaan doontaa soo nebigu weelkii intuu fayday wax ma waayin oo gacmaha ma taagayo oo muxuu ahay madaxa kor ma fiirinayo maanta unbuu ku habaari way kuu dhammaan baan isir wiri nebigu sal alla alay wasalam dabcan sidii buu ku ducaystay markaasuu nebigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam allahuma atcim man atcamanii wa asqi man asqaanii ilaahu ciddii cunto isiisa cunto sii oo ciddii i waraabisa ilaahu waraabi nebigu sal alla alay wasalam waa ducaystay meeshuu miqdaad ka baqay aduu ku habaari doonaa nebigu isaga unbaa ducaystay ilaahu cunto isii oo cid i waraabisa isii oo ciddii cunto isiisa cunto sii oo ciddii i waraabisa cabitaan sii nebigu waa ducaystay sal alla alay wasalam ayib murugtii baa ka baxday ninkii miqdaad ahaa markaasuu wuxuu is yidhi walbahaarkii waa ka dhacayoo inaan la habaarayni waa soo baxdo habaarkii dhinac kale ducuu noqday hadda maadaama nebigii leeyahay ilaahu ciddii cunto isiisa cunto sii wuxuu rabaa inuu ducadan ka faa'iidaysto oo nebiga cunto u raadiyo oo uu ducadan helo nebigu ku duceeyey sal alla alay wasalam wuxuu yidhi markaasaan orday buu yidhi maraan qaatay maradii yaraydeen muxaqabay baan isku marmaray waa orday mindi baan qaatay mindidii baan la orday riyihii yarka ahay saddexda ah ayaan xaggooda u orday waxaan is yidhi teebaa ugu hili badan oo ugu cayilan midii muxuu ahay waan soo gowracay inaan gowracaan damcay markaasaa waxaan arkay inay muxuu ahay ay muxuu ahay caano leedahay tu kalaan is yidhi gowrac iyadana sidoo kale weel baan yaan raadiyey buu yidhi weelashii ka mida weelkii baan qaado markaasaan ku soo lisay buu yidhi caanii baan ku soo lisay markaasaa waxaan ka helay buu yidhi caano weelkii markaan ku lisay isagoo dhanba xumbo weelkii xumbaa ka kor martay nabigaan u keenay buu sal alla alay wasalam markaasaa waxaa idhi buu yidhi muxuu ahay asharibtum sharaabakum alleyla rasuulkaan u imid nabig sal lla alay slam markaan nabiga caanihii u keenay ayuu rasuulku igu yidhi xalay caanihiinii ma cabteen idinku xalay markaasaa waxaan idhi haa rasuulka ilaahay adigu cab ishrab wuu cabbay markaasuu cabbay markuu cabbay buu ii dhiibay wuu isiiyey markaasaan wuxuu yidhi rasuulka ilaahay cab waa cabbay markaasuu ii dhiibay nebigu sal alla alay wasalam yacni wax weeyaan markaan gartay nebigu sal alla alay wasalam in uu caanihii ka dhergay oo cokonaaday oo gaajadii ka baxday dacwadiisiina iyo baryadiisiina aan helay baryadii ahayd ilaahu ciddii i waraabisa waraabi oo ciddii yani wax weeye cunto isiisa isii ilan isagaa cuntadii cabitaankii keenoo nebigii u waraabiyey oo caana ka dharjiyey ducadiina aan helay buu yidhi nebigu ku duceeyey ayaan qoslay buu yidhi xataa ulqiitu ila alardi qosol baan la dhacay buu yidhi ilaa aan dhulka ku dhacay baan qoslay buu yidhi markaasaa nebigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam ixdaa saw'aatika yaa miqdaadow kollay xumaanyaalkaagii mid ka mida un weeye maxaad samaysay maxaad ku qoslaysaa kolley waxbaad ku kacday maxay yahay waxaas markaasaan idhi rasuulka ilaahayow sidaa iyo saasay wax u dhaceen caanihii uu cabbay shaydaan wuxuu ugu sheekeeyey kadib murugta ku dhacday galgalashadii habeenkuu galgalanayey markuu gacmaha kor u qaaday nebigu yidhi wallahi haddan buu ku habaari doonaa qisadii buu uga sheekeeyey nebigu sal alla alay wasalam markaasaa wuxuu yidhi nebigu sal alla alay wasalam maa haadihi ilaa raxmatun min allah yacni waxa weye waa uu naxariis ilaahay buu yidhi ilaahay caanahan uu riyahan inaga siiyey waa uu naxariis ilaahay
أفلا كنت آذنتني فنوقظ صاحبينا فيصيبان منها محاد يقول شيء ويدي لبدينا صاحبنا وانكعن لهين مركاسي إن لعب لهين بالنبي صلى الله عليه وسلم مركاسا وحو يري والذي بعثك بالحق ما أبالي إذا أصبتها وأصبتها معك من أصابها من الناس رسولك إلهي بان قدارته أو أبي يلي ماي مرضاد أدوغنا إيه ديركتود عانيه عبتي أنوغنا آن عبي عدي كلا كقد دوايل كيدبول مسلم باسو ساري بخاري أدب المفرد كوري قصة عجبت بدن واحد tilmaamaysa nabi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu alayhi iyo deeqsinimadiisii iyo waliba sidoo naftiisa uga bixinayo dadka walaalihii ugu dooray ayay nabiga sallallahu alayhi wasallam tilmaamaysa waana qisadii ugu dambeysay ee xalaqada iyada ah aynu muxuu ahay ku soo qaadanay nabi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu iyo deeqsinimadiisa wax iyadana laga sheekayn karo ama la cabiri karo maaha rasuulka salawaatu rabbi wasalaamu alayhi waa sidaasoo nin fog iyo nin dhow nin sokeeya iyo nin shishe gaal iyo muslimba deeqda nabigu waa wada gaadhay salawaatu rabbi wasalaamu alayhi bal ka waran nin mujtamaca noocaas saa u baahan ku dhex nool oo haddana aan weligii laga haynin maya laga haynin wax la weydiistay waa wax cajiiba wax la yaab la weeye laakiin waxay tilmaamaysaa yani shakhsiyad aad u sarreysa iyo naf aad u sarreysa iyo dabeecad aad u sarreysa iyo oo hiba ah oo ilaahay nabi maxamed ku galladaystay salawaatu rabbi wasalaamu alayhi ayay tilmaamaysaa bakhaylnimo laguma aqoonin asaguna ma aqoonin salawaatu lagumana sheegin gaal iyo muslim toona kumayna sheegin bal aad buu u gacan furnaa si aan laga sheekayn kareenin oo tasawurka bini aadamka oo dhanba ka baxsan ayuu nabigu deeqsi u ahaa salawaatu rabbi wasalaamu alayhi waa xalaqadii toddobaad ilaa aynu kaga kulmayno xalaqada 8aad sidaa iyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu